السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي دمان أرض الصومالية ومعنا العقال. ما أنتو حنقول هذا موضوع عادي قالية سيدي لو قدي هالجروبة امتحان كقرنك. أنت أنا جود قلين حكا عصنا إلى مقال كلاك سارتد سبسكرايب بطن كنا تابتد قبل كان فرتسي أو سو بيرتد يوتيوب. ويا هاي مدوني ساعة إن قدي هالجرودي امتحان كقرنك. كان شام عدا كان قبلك كان يسكولك امتحان كستا amase akhriskaagu ma doonaysaa inuu noqdo mid miro dhal ah. Haddaba waxaan ku hayaa 10 qodob oo haddii aad samaysid imtixaankaagu guul weyn ka gaari doonto hadduu Ilaahay idmo. Waayo qodobka koowaad wax akhriskaaga joogto ka dhig. Wax akhriska anaga dhibaatadan haysto waxa waaye maalin waxaan akhrinaa maalin waan seexanaa maalin ciyaaraha soo daawanaa dhalinyaranahay marka qaar waxa waaye filmaan wax iskaga tuuranaa laakiin wax akhriskaasi ma noqonayaa mid ka saacidaya inaad guul ka gaarto imtixaanka Ilaahay. Su'aashu waa maya, jawaabtu waa maya. Marka wax akhriskaaga joogto ka dhig mid isku xiga ilaa maalintii 20 daqiiqo door ha noqdo mid isku xiga ka dhig. Waayo qodobka labaad wuxuu noqonayaa ka dheerow waxyaabaha ku carqaladeynaya. Kow markaad u fariisatid inaad wax akhrinaysid miiska iska hagaaji qolka soo xiro ama meel buuq la'aan wax ku akhri. Warqad iyo qalin soo qaado warqadda inta dhigo wax akhriskaaga bilow. Maskaxdaada waxay samayn doontaa inay fariimo ku soo dirto. Hebel ma wacdid maxaa la yiraahdaa waxaas ma Google ka weydiisid wax kasta oo kugu soo dhaca warqadda ku calaamad ku xariiq wax akhriska sii wado. Sidoo kale waxa iska dheeraysaa social media telefonka ama wal soo wacaya ama social media xogaa yar barnaamij galaysa marka aslanba marka wax akhrinaysa telefonka iska dami iska dheere buuqna ka dheerow miiskaaga nadiif ah ku ahaado qalinka warqadna agtaada ku yaalo wax kasta kugu soo dhaca hadhow aad Ilaahay mid u baartid. qodobka saddexaad wuxuu ku noqonayaa samayso jadwal leh break time ama nasiino. jadwalka wuxuu kaa saacidayaa inaad tiraadid maxaan akhrinayaa maadada raba inaan akhriyo waa jadwalka isaga ayaa ku hagaaya. jadwalkaas waxaa ku daraysaa waqti nasiino. tusaale marka 40 daqiiqo ama ugu badnaan hal saac wax akhrisidba waxaa qaadanaysaa waqti nasiina. markaas waxaa samaynaysaa effort wuxuu kugu qornaa ama waxyaabaha yarka entertainmentiga waxay micnaha ii sheeg u baahnayd inaad ku madadaalato ayaad markaas dib u baaraysaa. qodobka afaraad inta aadan bilaabin qorshe. waayo jadwalkii waa ku dhagsan yahay. su'aal maanta waxa ku qoran galabtii inaad akhrisid physics. akhriskaaga waa joogto mobilkii wixii waa damisay physics harta inaad akhrisid. physics marka galabta physics ay qoran inaad akhriyo physics iska akhrinaya maya. waxaa samaysaa qorshe intaadan bilaabin. meeqa saacan haystaa waxaan rabaa inaad jadwalkan ku akhriyo hal saac. halka saac maxaan ka bixi karaa imisa mawduuc ayaan akhrin karaa. kow marka maxaa samaynaysaa to do list waxa la yiraahdo samaynaysaa marka ciwaankaas aad baratid si aad u saartid marka samayso baarkii sheeg list samayso ama se qorshe intaadan bilaabin wax akhriska. isticmaal qalab dhameystiran waa qodobka afraad. maxaa isticmaalaysaa marka wax akhrinaysid ha iska akhrinay wixii soo qaado qalinkaaga ama mark banka mid wax lagu calaamadeeyo meel kasta oo muhiim ah ama note ama meel kasta oo qaacido ama wax kasta oo muhiim ah hoosta ka calaamadee xariiqin saar color mari si aad hadhow marka dib kale u akhrinaysid ay kugu fudaato. waxaan kaloo ku xasuusinayaa looma baahna inaad buugga dhan calaamado ka wada dhigtid taas oo ku sii wareerinaysa. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa waa qodobka lixaad imtixaan iska qaad. ha sugin imtixaanka guud ee iskuulka ama kan dawladda. ciwaan kasta oo akhrisid ama markuu cutub ku dhamaado adigu imtixaan iska qaad. google-ka aad su'aalo ka baar cutubkan maanta akhrisay su'aalihiisa iyagoo badan waa helaysaa. su'aalahaas bal inaad ka shaqayn kartid exercise-yadaas hatta iyagoo kuwiisa waa helaysaa. qodobka toddobaad oo haddii Ilaahay ma faa'iido weyn ku yeelan wuxuu noqon doonaa u faa'iideey walaalka ama walaasha. waxaa la yiraahdaa noqon macallin. cutubkaana maanta akhrisay
si fiican u fahantay qof kale uga faa'iidee adigana waxay kugu sii noqonaysaa inuu maskaxdaada dib ay u sii celiso oo si fiican u qabsatid qodobka haddii ilaahayna sideed wuxuu noqonayaa ka taxadar naftaada ka taxadar cuntooyinka borotiinka iyo fitamiinka leh ukunta caana geelka kalluunka qudaarta cuntadaas cun sidoo kalena biyo kugu filan cab oo ogna anaga mujtamaceena biyaha dhib badan baa naga haysta weli waxaan rabaa inaan kugu daro ama ka faa'iidaysan halkan barafka aan iska ilaalis waayo marka biyo badan oo kugu filan haddii ilaahay macab waxaa kaloo muhiim ah marka lagu leeyahay ka taxadar naftaada hurdo fiican inaad seexatid amiinkiyaa soo jeedayaa wax akhrisan ku dhafrahayaa subaxii baan iskuulkii aadayaa ama inta wax kusoo dhafraa inta cashar kusoo dhafraa imtixaan galahayaa maya maxaa samaysaa hurdo fiican 7 saac 8 saac 6 saac ugu yaraan amiinkii soo seexo qodobka sabaad wuxuu noqonayaa iska dhaaf walbahaarka waxaan ognahay in ardayda badan ay imtixaanka ku hayo wax la yiraahdo walbahaar ama walwal sidee imtixaanka sidee noqon doontaa imtixaanka dawladda maxaa laga yaabaa iska indhatir waxyaabaha message-ka maskaxda ku soo dhacaya ama dadku ay sheegaan intaas qof dhacday ama waxaas oo dhan waxba ku tarimaya haddii aad u baahan tahay in walbahaarka si fudud iskaga daaweysid fadlan akhri oo gacaawiyaha ardayga oo si fiican haddii ilaahay kaaga saacidi doona in walbahaarku ku daayo way qodobka tobnaad wuxuu noqonayaa oo aad iyo aad asna muhiim u ah ku kalsoonow naftaada haddii aad wax soo akhrisay si jadwal wax ku soo akhrin jirtay cunto fiican soo cuntay nasiina fiican soo qaadatay hurdo fiican soo qaadatay imtixaan iska soo qaadan jirtay walaalka u faa'iideysay casharada soo akhrisay walbahaarka iska yaraysay ku kalsoonow naftaada haddii ilaahay idmo dhibco fiican baa keeni doontaa waad baasi doontaa waadna farxi doontaa ku kalsoonow nafsadaada oo ayada maahane adigu cid kale mas'uuliyadaha saaran baqitaanka iyo waxyaabaha kugu jira nafsadaada kalsooni darrada ah wixii aad akhrisay waxba ma taqaanid saas waaye waxaan aan loo keenin ama si kale laga dhiga waxaas oo dhan xagga dhig nafsadaada ku kalsoonow waaye waxaan rabaa haddii ilaahay marka inaan kusoo gabagabeeyo su-aasha ugu dambeysa oo xaggaaga kaa weydiinaya haddii ilaahay oo ah 10 qodob ee aan soo tixay midkeebaa aad iyo aad adiga faa'iido kuugu leh oo kusoo jiitay nala wadaag commentiga hoose aad baa u mahadsantahay muuqaalka like iyo share ka ilmaamin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.